ku soo dhawaada Journey to Fame wadadii caanimada ee qodxaha lahayd qaybteedii lixaad. maxay tahay sababta heesahayga YouTube-ka looga saaray oo uu uga saaray Liibaan Jaamac oo ah shakhsigii aniga iga duubi jiray heesaha, ninkii halhayskiisu ahaa No One Knows the Secret. Liibaan Jaamac wuxuu iga duubay in ka badan 20 heesood, heesaha anigu aan qaaday kuwa ugu saameynta badnaa music industry-ga Soomaalida. waxaa ka mid ah heesuu iga duubay heeskii Barbar, heeska Idhe, iyo heeska Caamadaas Ruux Cidlaa, iyo heeska Dhalandhool Kaan Raxmed Roos la qaaday Biri Shalay Tamay Noqon. heesa aad u tiro badan oo saameyntooda leh buu wuxuu iga duubay 2017kii ilaa iyo 2020gii. hal heesa oo heesaha ka mid ah oo aanan lacag ku bixin oo aanan lacag ku siin ma jirto. kulligood waxaan ku wada bixiyey lacag, asaguna wuxuu ka sameeyey lacag. hees aan milyanka kor u dhaafin ma jirto. heeska ugu yar baa wuxuu ahaa 1 milyan. heesaha kale waxay ahaayeen 12 milyan iyo 2 milyan bay wada ahaayeen. Liibaan Jaamac heesahayga wuxuu ka saaray kadib markii aan ka hadlay Journey to Fame aan kaga hadlayay music industry-ga, dhibaatada aan anigu ka soo maray iyo dhibaatada ay fanaaniintu musiga ka marto. waxaa jira la yiraahdo cyber bullying oo lagu sameeyo fanaaniinta. haddii uu fanaanku ka hadlo heesihiisa iyo cidda heesaha ka duubi jirtay iyo cidda ku shaqaysan jirtay heesihiisa oo lacagta ka samayn jirtay, haddiiba uu ka hadlo waxaa lagu sameynaya wax la yiraahdo cyber bullying. heesihiisa laga gurayaa YouTube-ka, waxa la leeyahay heesaha laga guray shutdown laga dhigay. laakiin anigu ma ahi nin shutdown laga dhigi karo, nin u baahan shout out, nin u baahan inuu soo shaac baxo, nin u baahan music inuu dad xagto. This was my talent and it's my talent. waa talentigaygi. hadda baa waxaan awood u leeyahay wax allaaliya wixii hees laga guray meesha inaan dib intaan u duubo kusoo guro meesha, weliba 2 week gudahood awooddaas baan leeyahay. Liibaan Jaamacow waad mahadsan tahay walaal, aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay maadaama aad heesahayga ka gurtay. halkaan uma soo fariisan inaan ku dhaliilo, inaan ku caayo, inaan wax kaa sheego. halkaan uma soo fariisan. waxaan ku leeyahay walaal waa mahadsan tahay. heesahaygana dib uguma soo celin kartid YouTube-ka. go-aankii aad qaadatay ee ahaa inaad heesahayga YouTube-ka ka saarto waa inaad ku adkaysataa. waa qodob. qodobka labaad, hal hees oo aan anigu leeyahay oo aad copyright ku haysan kartidna ma jiro. waxaan halkan ku hayaa originalkoodii heesaha aan wada duubay oo dhan. musiciankii tumay, taariikhdii la tumay, lacagtii aan ka bixiyey, tan adiga kugu siiyey oo aad ku duubtay, wixii oo dhan oo documenti ah baan halkan ku hayaa. kuma soo celin kartid heesahayga YouTube. go-aankaad qaadatay waa inaad ku adkaysataa. kow. qodobka labaad, copyright hal heesoo aan leeyahay kuma haysan kartid. music pirates must be stopped in Somali music industry. qof kasta oo Soomaali ah oo fanaan ah oo muusigiisa xoog lagu haysto xaq wuxuu u leeyahay inuu muusigiisa soo ceshto, because of asaga iskale talentiga, asaga iskale qofka heesay waa asaga, qofka bulshada entertainment-ga u sameynayay waa asaga. dadkan youtuberada ee YouTube-ka wax soo gudbiya, qof kasta contractigii idin dhex mara iyo dealkii idin dhex maraad ku wada shaqaynaysaan. haddii qofka cameraman-kaahi uu kaa duubo lacag siiso, xaq waxaad u leedahay inaad YouTube-kaaga gashato. haddiiba aad asaga siiso oo aad tiraahdo walaal ku ceesh, xaq uma lahan heesahaaga inuu ku xadgudbo. aniga heestayda Barbar, showgii hadda aan ku dhigay Minnesota oo ahaa show aad u weyn, miyaad ku aragteen YouTube-ka? lama soo gelin karo because of heesihii copyright-koodii waxaa haysta No One Knows the Secret, Liibaan Jaamac. but I know the secret. aniga keligay maaha fanaaniinta ay ku dhacday in intay stage concert ku qabtaan, show ku qabtaan, heesahoodii la damco
in showgii inta la edit gareeyo la soo geliyo soo gashan waaya waa fanaankii heeska lahaa in la yidhaahdo heeskaagii youtube-ka ma soo gashan kartid only waxaa soo gelin kara ninkaas oo copyright ku haysta waa qayb ka mid a adoonsiga fanaaniinta lagu adoonsado waa qayb ka mid a isleefnimada fanaaniinta lagu hayo Soomaaliyeed fanaan kasta oo Soomaaliyeed baan u hadlayaa keligii iskuma hadlayo waxaad arkaysaa fanaan heeska asagu soo tuntay kharashka asagu soo gatay dharka asagu soo gatay wax walba oo heeskaas ku saabsan lacagtiisa kala baxay si uu Soomaali Maxamed entertainment ugu sameeyo ama uu dhaqaalaba uga sameeyo ama uu dadkaba isku baro nin kale baa wuxuu rabaa intuu isbaara u dhigto in uu yiraahdo ana ka ceyshay adiguna halkaasaad qalalnaanaysaa fanaan Soomaaliyeed oo ma aragteen koob shaah shuban kara kulligood mid walba markuu sii dhimanaya sanadqad laga soo saaraa mid walba meelaha suureegaya wax u haysta male uu labisan yahay uu soo labistaa marka ma ahi anigu nin isleef muusigiisii asaga loogu haysan karo ma liibaan jaamacow waad mahadsan tahay baan mar labaad ku leeyahay qof kasta khaladka uu gala ciqaabteeda waa inuu arkaa liibaan jaamacow heesahayga waxaad ku samaysay takriful adigoo markii horeba khalad waxa weey ku haystay copyright-kooda lacagna aniga iga qaaday markaad iga duubaysay lacag aan kugu wada siiyey kulligood lacagna aad ka samaysay haddana inaad dib uga gurto ciqaabteedu waxay noqonaysaa sharciga muusiga maxkamadda ugu sarreysa ee muusiga inaan aniga adigu isla tagno bay ciqaabteedu noqonaysaa music piracy has to stop music bililiqada muusiga Soomaaliyeed ee lagu hayo laga bililiqaysanaya fanaaniinta iyo advantage-ka sida khasabka ah looga qaato fanaaniinta anigu haddan ku sheegaya kamid ma ahi dadka lagu gumaysan kara muusigooda xaqna waan u leeyahay inaan wax allaaliyo wixii aniga iga maqan ka hadlo raadiyo haddii aad is leedahay sideeba uga hadlay wuxuu xaq u leeyahay ku buli gareena aniga maahan qofkaas fanaan kasta oo Soomaaliyeed oo aan xaqiisa raadsanin xataa xaqiisa aan u raadinaya waana ka hadlayaa music industry-ga Soomaalida qofku qaabku doonaba ha ku soo galee wuxuu u soo maraa juhdi iyo wada dheer si uu ummadda Soomaaliyeed isku baro si uu lacag uga sameeyo si uu horumar ugu gaaro laakiin dad waxaa jira cunaqabatayn ku ah fanaanka kalena hor jooga asaga iyo bulshada daruufaha fanaanku uu maro caqabada ugu weyn waxa weeye muusigiisii in lagu kontrolo muusigii uu asagu lahaa oo lacagta ka bixiyay in lagu kontrolo laakiin aniga maahan shakhsiga lagu kontrolayo muusigiisii aniga dawlad ah aniga maamul goboleed ah aniga waxaan ahay record level dhammaystiran oo iskiis ah bayradka muusiga burcad badeeda muusiga Soomaalida ee fanaaniinta burcad badeednimada ku sameynaysa burcad muusigeedka ku sameynaysa waa in la joojiyaa waa in la joojiyaa ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa anigu YouTube-kan baan leeyahay shalay markii aan hadlay oo aan arrimahayga ka hadlay dad waxaa jira hadda meel walba la taagan baraanki bay ahayd afkayga lagama maqal baraanki bay ahayd afkayga lagama maqal anigu waxaan diiday adoonsi iyo in muusiga Soomaalida la igu dhex gumaysto baan diiday taas baan diiday mana yeelayo qofna aniga adoon uma noqon karo qofna anigu dog uma noqon karo qofna anigu ma hoostegi karo anna ma doonayo qof intaas in la eg inaan ku sameeyo oo qof hoos fariisto dadku inay wada shaqaystaan oo wada sinaadaan iyo cadaalad iyo nidaam iyo nuurka iyo iftiinka wanaag baan qof kasta la rabnaa cidna kama xumin cidna jalis kama nihin intaas baan rabay maanta inaan idila wadaago heesahaygii laga saaray YouTube-ka ma doonayo
liibaan jaamacow inaad mar labaad ku soo celiso mar labaad baan kaaga digayaa arrinkaa mana ku sii haysan kartid copyrightkooda aniga iskale aniga muusigooda tuntay aniga labiskooda soo gatay aniga lacagtayda ku bixiyay si aan adiga kuu siiyo oo adiga duubto adigana soo gashtay adigana copyright ku xirtay marka muusigayga ana iskale storygaygana ana sheegaya qof ii hadli kara oo aniga storygayga iga gudbin kara oo dhihi kara Omar Baasaan la yeelay ama Omar Baasaan ku saxana no anigay dadku iga dhageysanayaan aniga weeye qofka victimka ah oo dhinac walba loo waxad gudbay anoo bulshada Soomaaliyeed u shaqeynaya entertainment u sameynaya dadkayga Soomaaliyeed la qaybsanaya rafaadka iyo dhibka iyo waxa laaliyo waxay soo mareen oo dhan aniga weeye ninka storygayga idin soo gudbinaya reer commentiyow waad mahadsantihiin beerkiyo bogaba waan idinka ogsoonahay awoodiina waxaan ahay shakhsi aaminsan meeshaad igala soo baxdeen og dadnimadiina iyo shakhsiyadiina og hadda YouTube-ka waxaad ka baari kartaan waxaan idin sheegay inay run tahay inay been tahay YouTube-kaygan waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe ii saartaan hadda kadibna heesahayga ama wax walbo aan sameynayo entertainment haddaan xataa heesaha ka baxayo oo joojinayo haddaan heesaha ku sii jirayo haddaan entertainment sameynayo haddaan riwaayad sameynayo haddaan movie bilaabayo haddaan halkan aniga iyo idinka cid noo kala turjumaysa ma jirto qof kasta oo fanaana oo doonaya campaign-kan music piracy inuu ka qayb qaato oo la joojiyo oo ku dhibanna wuu ila soo xiriiri karaa qof kasta oo fanaana oo daruufo adag ay ku haystaan muusiga oo doonaya campaign-kan inuu ka qayb qaato wuu ila soo xiriiri karaa waa mahadsantihiin walaalahay sharaf iyo karaamo iyo cisi intaba waan idin hayaa qaybta 7 waxaan kaga hadli doonaa isla music pirate bilaqada musiga lagu hayo iyo dhibaatada fanaanka lagu hayo wax idin soo gudbiya dhageysataan heesaha dhageysataan marxaladaha ay soo maraan aniga weeye wiilkaan idinka qaranayn oo idin la wadaagaya aniga weeye wiilka aan cidna ka baqayn oo xaq u hadli kara aniga weeye wiilka ilaahay islaam yaqaan oo madaxa timaha ku leh waana idin salaamaya salaamullaahi